wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee soo gaaray magaalada Juba ee xarunta koonfurta Suudaan oo ay ku jireen wasiirada arrimaha dibadda iyo ganacsiga dalka ayaa si weyn waxa garoonka diyaaradaha magaalada ugu soo dhaweeyay madaxweynaha wadankan koonfurta Suudaan Salva Kiir. madaxweynaha ayaa fagaaraha xorriyadda ee magaalada Juba uga qayb galay munaasabad maalinta nabadda koonfurta Suudaan oo ay goobjoog ka ahaayeen madaxda dalalka Uganda, Suudaan, Masar, Itoobiya iyo wakiilo ka socday beesha caalamka. hadallo madaxweyne Farmaajo ka jeediyay munaasabadan ayuu kaga hadlay dhibaatada dagaalada sokeeye ee leeyihiin isagoo ku adkeeyay hogaamiyaasha koonfurta Suudaan in nabadda ay u heliyaan isla markaana ay ka fakaraan sidii dalkooda uga mid noqon lahaa dal door ku yeesha horumarka ay ku tallaabsanayso qaaradda Afrika. It's a great honor for me to be part of this historic. aad bay ii farxad gelinaysaa inaan qayb ka ahay munaasabadan aan caadiga ahayn ee nabadda ka dhacaysa Juba. tani waxay si cad u muujinaysaa sida koonfurta Suudaan ay uga go'an tahay in heshiiska ay gaareen uu xal u noqdo rabshadihii nabad buuxda iyo barwaaqo ay gaartay koonfurta Suudaan waxa ay la mid tahay horumar uu gaaray gobolka oo dhan. waxaan idinkugu baaqayaa inaad gacmaha isqabsataan si wadankiina aad ugu hagtaan wadada nabadda iyo horumarka. madaxweyne Farmaajo ayaa ka mid ah hogaamiyaasha Afrika ee kaalinta firfircoon ku lahaa xal u helidda rabshadaha ka dhacaya koonfurta Suudaan iyadoo madaxweynuhu uu qayb ka ahaa shirarkii wadahadalada hogaamiyaashan iyo heshiiskii 12 Sebtembar ee sanadkan hogaamiyaasha koonfurta Suudaan ku dhexmaray magaalada Addis Ababa. koonfurta Suudaan maanta waxay u ahayd maalin u gaar nabadda waxaana dadweynaha halkan isugu yimid ee kumanaanka kor u dhaafaya magaalada Juba ay halkan u yimaadeen si ay u arkaan hogaamiyaashoodii halkan ku dagaalamay ee dad badan dhibana u noqdeen in maanta ay arkaan iyagoo halkan wada fadhiya taas oo qayb ay ku lahaayeen dawladaha gobolka oo ay ka mid tahay dawladda Soomaaliya. Ali Baasha Cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada Juba.